Wararka laga helayo waddanka Jarmalka ayaa ku waramay in maxkamad ku taala halkaasi ay xukun ku rideen nin Soomaaliya oo sida lagu eedeeyay ninkan uu faraxumeyn u geystay gabar adeer u yahay waa sida ay warisay maxkamadda. Maxkamadan oo ku taala gudaha waddanka Jarmalka ayaa maalinkii shalay waxaa xukun ay ku rideen nin Soomaaliya oo daadiisa lagu sheegay 28 sano jir. Ninkan ayaa waxaa lagu helay dambi inuu 5 mar oo kala duwan uu faraxumeeyay gabar uu adeer u yahay ama waalid ugu aadan da'deedana lagu sheegay 8 sano jir inay tahay, isla markaana gabadhan hooyadeed ayuu qaba ninkan waa sida maxkamaddu ay warisay. Dambigan ayaa waxa uu dhacay xagaagii 2021 laakiinse xukunka ayaa shalay oo Talaado ahayd dhacay. Ninkan waxaa lagu xukumay 5 sano oo xariga iyo sidoo kale inuu bixiyo wixii qarash ahaa maxkamadda sidoo kale kiiska idil ku baxay dhamaantiisa. Thomas oo madax u dhowr garsoore oo kiiska ku jira ayaa waxa uu sheegay in sababta ninkan arrintan foosha xun ku kaliftay inay tahay in isaga iyo xaaskiisa ay ilmo isku dhaleen kadibna ay ku heshiiyeen muddo sanad inaysan isku tagin, sidaa daraadeedna uu ninka damaciisa oo fool xun uu kala kor dhacay gabadha yar ee adeerku u yahay isla markaana 8 sano jirka ahayd waa sida garsoorahan uu tilmaamay. Arrintan ayaa noqotay mid si weyn loogu hadalhayo gudaha waddankaasi. Jaraa'idyada ka soo baxa waddanka Jarmalka kuwooda ugu waaweyn ayaa daabacaya bogagooda horena ku soo qoraya ciwaanna kaga dhigaya nin Soomaaliya oo faraxumeeyay gabar uu adeer u yahay. Dhinaca kale Soomaalida ku nool waddankaasi Jarmalka ayaa aad walaac u soo wajahay kadib kiiskan markii ay maqleen. Dhinaca kale hooyada dhashay gabadhan ayaa lagu waramayaa in iyadana baaritaan ay ku wadaan ciidanka booliska waddankaasi sabab la xiriira in iyada arrintan ay wax ka ogeyd.